arday baan hayo ubaxii wadankaana hayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دابضيال رجو كيبل تي في أيا تلجان قادسان واحد كسر باتن برامج قارة وأنا قلت لقلني إن نكو إغنه مانتا وحدا هيكو بيغن كويلا تكا نوفمبر مالنتا معانك صوماليات برامج كا أيا وحامرتي يقوى أستاذ عبد الرحمن حسن حسين أستاذ الشوتية وكمدا برياشة قبل كبنادر sidoo kalena waa maamulka Sigma Academy waxaanu in badan aan ka wareysan doonaa maanta 12 November ee ku beegantaa maxay kaga dhigantaa macallimiinta Soomaaliyeed gudahanba marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Ustaad Cabdiraxmaan soo Ustaad aad ma santahay waan dhawahay Ashraf adiga iyo bahda Radio TV waan ku dhawaa barnaamijka ma santahay marka Ustaad sharaf ay noo tahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato en 12 November ay ku beegantahay maanta bal markii aad noo soo koobto maxay ka dhigantahay 12 November oo loo asteeyay maalinta macallinka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim marka la maasan tahay runtii 12 November markii la maqlo waa maalin runtii aad u weyn waa maalin runtii macallimiinta Soomaaliyeed si gaar ah ay u tahay maalin marka loo asteeyay sooyaalka taariikhda macallinka Soomaaliyeedna runtii muddo dheer ayuu soo jiray dawladda kacaanka ayaa runtii u asteysay maanta oo kale 12 November 1974 inay noqoto maalin macallinka Soomaaliyeed aad loo weyneeyo la maamuuso loo muujiyo qadarinta uu mudan yahay marka macallinka Soomaaliyeed runtii maanta waa 47 guuradii ka soo wareegtay markii loo asteeyay waxaan sidii karnaa runtii waxay uga dhigan tahay macallimiinta Soomaaliyeed maanta oo kale in la dhiirigeliyo loo hambaliyeeyo loo sheego runtii doorka cajiibka ah ay kaga qaateen horumarinta waxbarashada dalka waa ogtahay Ashrafow dalku wuxuu soo maray marxalado kala duwan burbur ayuu galay markii uu ficneedo runtii macallin Soomaaliyeed uu xaqiisa iyo xuquuqdiisa helo aad loo maamuuso waxay ahayd 10 sano ugu horeysay dawladda kacaanka wixii inta ka dambeeyay 91 markii burburkii dhacayba macallimiinta Soomaaliyeed way kala firdhadeen bulshadaas baabaaday qayb ka noqdeen kadibna waxay dib runtii isugu dayeen in waxbarashadii soo rogaal celiyaan oo iskuulo iyo jaamacado iyo dugsiyo ay furaan ayagoo bulshada Soomaaliyeed garab weyn ku siiyay in waxbarashada aan laga qoosan oo horeyna marka ay wadaan Ustaad runtii waa sida ka dhawaajisay macallinku markii magaca oo kaliya la sheego ayaa wax weyn ah maxay ilaa maanta aqoon-yahanka waxa soo saaray macallin laakiin waxaad moodaa bulshada intooda badan in ay markaasi aad ay uga markaa fahamkiisa u adag tahay macallinka iyo qiimaha ku fadhiyo bal markii qiimeyn aad samayso macallinka runtii dhibaato badan ayuu markaasi ku jira iyadoo aan isu dhigmin macallinka qiimaha uu meesha uu gaarsiisan yahay iyo bulshada inta badan meesha uu ka joogo marka hal iyo labo aad marka ka eegto ama ka tiraado macallinka iyo markii Soomaaliya aan ka hadalno dhibaatooyinkiisa runtii dhibaatooyinku aad u fara badan yihiin macallimiinta Soomaaliyeed iyo markii loo fiiriyo macallimiinta kale ee dunida horumartay ka howlgasha waxaa moodaa in farqi weyn oo cajiib ah u dhaxeeyo man la xasaban akhrinayo xogta macallimiinta iyo xuquuqda marka ay ku leeyihiin dawladahooda dawladihii ugu cajiibsanay ugu dabcan macallimiinta aad u maamuuso waxaa kamid ah dawladda Switzerland oo kaalinta koowaad kaga jirta mushaar bixinta macallinka iyo xuquuqdiisa hadalkeena waa aragtaa markii qofka mas'uulka ama maxaan ku yiraahdo xil raadinayo xilka ugu badan la raadiyo waa xilka dawladeed wadamadaas kale waxa arkaysaa xilka loogu tartamayo ee qofka uu ku haminayo inay tahay macallimada taas oo runtii ay nooga fiican yihiin dhanka maxaan ku yiraahdaa qiimeynta macallinka marka imaan dhankeena oo bulshada Soomaaliyeed runtii waxa moodaa qiimeynta macallinka inay aad u hooseyso haddii noqoto runtii xuquuqda macallinka oo runtii loo qeybiyo laba qaybood xuquuq runtii ah xuquuq macallinka aqoontiisa qosaysa in sare loo qaado oo macallimiintu tababaro ay helaan ku filan iyo xuquuqda labaad oo ah in xuquuq naftiisa macallin ku saabsan inuu markaa helo haddii ahaa lahayd moralkiisa ama niyadiisa in aad loo wanaajiyo haddii ahaa lahayd in mushaahadkiisa iyo gunno dheeraada marka uu helo oo dakhli fiican uu waxbarashadii ka helo maadaama uu yahay macallinka mashiin shaqeynaya oo runtii bulshada wax badan u soo kordhinaya لكن بدل كده رون ضل كأنه حيابها نصيب درada haysto waxa kamid ah in macalinku uu noqdo xamaali
waxbarashadii ay noqoto keliya in macalinkii lagu shaqaysto oo haaf yar ama lacag yarna oo bishii keliya ka fiirsado waxbarashadii tayadana xoogaa si un u dhaawici doonta runtii waxaan isleeyahay qiimeynta ashraf oo markaan fiiriyo macalimiinta dalkeena iyo runtii wadamada kaleeto inay aad iyo aad farqi badan u dhexeeyo qiimaha macalinka runtii wax lasoo koobi karana ma ahan waa xasuusataa abwaankii maxaan ku yidhahdaa masaarida ahaa axmed shawqi markuu macalinka iyo fadligiisa ka hadlayay waatuu lahaa qum lilmucalimi wafiihi tabjiila kaada almucallimu an yakuna rasuula aclimta ana ashrafa aw ajala man alladii yabni wayunshiu anfusan wacuquula macalinku waa qofka soo saaraya bulsho bedelaya fikirkooda habdhaqankooda qayb weyn ka qaadanaya runtii horumarinta dalkaas oo idil u aragta madaxda mas-uuliyiinta qareennada injineerada dhaqaatiirta oo idil macalin la-aantiis runtii hubaal waa inaysan soo bixi lahayn waan oga macalimiinta soomaaliyeed doorka ay ka qaateen horumarinta bulshada inuu yahay runtii door aad iyo aad maanta oo kale loo xuso loo weyneeyo runtii maanta oo kalena iskuullada iyo jaamacadaha waa la fasaxi jiray oo waana inay fasaxan yihiin waa rajeynaynaa oo runtii macalinka la maamuuso la sharfo suugaan lagu cabiro maxaan ku yidhaha macalinka iyo fadligiisa aad iyo aadna qadarkiisa loo weyneeyo aad iyo aad waa mahadsantahay ustaad mar kale runtii markaan imaano soomaaliya waa wadan burbur ku jiray dabcan hase ahaatee burburka kasoo kabashadiisa waxaa kaalin weyn ku lahaa macalin haddii aanu macalin jiri lahayna jilalka maanta dabcan laga mashquuliyey inay si kale u marin habaabaan ma soo saari lahayn sida ay tahayna laakiin waxaa leeyahay macalimiinta ma lahan xuquuq gaar ah marka loo eego dowladaha kale ama markaasi wadamada kale qaarkood taasoo ay ka mid tahay in wadankii weli uu burbur ka soo qabsanayo macalimiintiina hadda runtii ay laba jibaarsi yihiin oo markaa ardaydii iyo markaa jilalkii kala soo saarayaan saa markaa eegto arday fara badan aad wax soo bartay markii dhankaagaan fiiriyo ilaa iyo haddana waxaa ku jirtaa nidaamkii markaas waxbarashada bal ardayda aan ku baraarugsanayn qiimaha macalinka uu leeyahay iyo waxaa jira arday qaar laakiin og hase ahaatee u dhaqmaya sida markaasi arday aanan ogeyn qiimaha macalinka markaas oo ku fadhiyo sidoo kalena waxaa jira arday loo kala saaro hoose dhexe iyo sare intaba sarena markii aan imaano waxaa iska jira dabcan fasalka ugu dambeeya dugsiga sare ardayda waxaa loo qaadaa ama laga qaada imtixaan imtixaankaasoo ardayga markaa laba midkood uu noqon doono ama inuu baaso ama inuu markaas imtixaankaasi ka hado bal inagoo ka faa'iidaysanayno maanta ay ku beegantahay 11 November markaas ku soo duuduubto ardayda iyo macalimiinta siday kula dhaqmaan iyo inay macalimiinta ka mudan yihiin wanaag iyo imtixaankaas oo kale adigoo markaa uga faa'iideynaya maanta oo 11 November ku beegan ee maalinta maxaa aad u mahadsan tahay runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta macalinkii waxaan ku yidhaahdaa macalinka ummad muslima ay leedahay oo dhan waxaa weeye macalinkeen Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo runtii hadaladiisii iyo maxaadiistiisii ka mid ahaa inamaa bucithtu liyutamima makaarim alakhlaaq nabigeena suubanaha wuxuu leeyahay waxaa la isoo saaro oo idil inaan dhamaystirno oo taam yeelno oo maxaan ku yidhahdaa xoojino akhlaaqda wanaagsan runtii xiriirka ka dhaxeeya macalinka iyo ardayga waa xiriir runtii aad iyo aad muhiim u ah markii goob waxbarasho laga hadlo ilaa 5 qaybood unba ugu muhiimsan waa maamul waa macalin waa arday waa agab waxbarasho iyo runtii macalimiintii wax dhigaysay marka waxaan is leeyahay xiriirka ka dhaxeeya macalinka iyo ardayga wuxuu hadda kasoo bilaabana mar walba macalinka inuu macalinku akhlaaq wanaagsan iyo ixtiraam wanaagsan siiyo ardaydiisa waxa hubaala bedelkeed inuu helaayo saas ay tahayna lama weynaayo mar walba arday runtii aad xooga akhlaaqdooda u liidato oo macalinka aan siinaynin ixtiraamka uu mudnaa oo macalinku afcelinaayo arday waxaad arkaysaa macalinkii uu u dhididaayo telefoon aan wax kale ku mashquulsan arday waxaad arkaysaa markuu macalinka arko meeshii la rabo inuu kusoo boodo uu hambaliyeeyo uu maxaan ku shafka geliyo oo yiraahdo macalinkeyga runtii saana aad aan u muujinaynin dhanka kalena waxaa la helaa runtii arday gob ah oo runtii macalinka iyo ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa aad iyo aad ula weyn tahay lagu soo barbaariyay aqoon iyo akhlaaq aad iyo aad u tayeysan oo runtii maamulka iyo macalimiinta dugsiga dugsi kasta runtii ka mid ah dugsiyada dalka ku yaala
ay akhlaaqdooda iyo maxaan ku yidhahda macallimiintooda ka faa'iidaystay saasay tahana mar walba ay horta caqabad lama weynaayo laakiin waxaan moodaa in ixtiraamka ardaydu marna aad uu u fiican yahay hal iyo labana ay jiraan arday aan aad ma arkaa u ixtiraamin macallinkooda laakiin mar kasta waxaa badan dadka wanaagsan ee macallinka og wanaagiisa iyo qiimaha markaa macallinka uu u leeyahay salamida waxaa soo dhow imtixaankii markaa ardayda geli lahaayeen inagoo uga faa'iidaysanayna munaasabadda 21 November oo aad maanta dabcan waqtigaaga noogu soo hortay barnaamijkana qayb ka tahay bal taladaada ku aadan ardaydaasi iyo runtii waa su'aal wanaagsan ardayda runtii imtixaanka qaranka galaysa runtii marxalad cajiib ay ka gudbayaan aad u wanaagsan sababtoo ah 12 sano ama 10 sano koodhood arday wuxuu soo baranayay ayaa la rabaa inuu caddeynteedii marqaatigeeda uu helo runtii ina shahaado qaran heshidna wax weyn ay ka dhigan tahay ardayda waxaan u rajeynayaa imtixaanka soo socda inay guulo wanaagsan ka gaari doonaan runtii haddii ahaa lahaayeen ardayda maxaan ku yidhaahdaa dugsiga sare ka qalin jebinaysa kuwa sidoo kale primary-ga kasoo baxaaya ee imtixaanka gobolka inay galaan rajeynaya in runtii guulo fiican ay ka keenaan runtii waa markii saddexaad aan rajeynayaa oo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir dib uu u qaadayo imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 8aad halka wasaaradda waxbarashadana runtii ay muddadii lasoo dhaafaba 15 inta ilaa intaba ay qaadaysay imtixaanaadka arday badanna runtii ay maaragtay ka gudbeen oo dhibco wanaagsan ay ka keeneen waan rajeynaynaa insha Allah tacaala sanadkanna sanad dugsiyeedkan 2021 2022 inay runtii ardayda dhibco sare ka keensan doonaan imtixaanaadkaas runtii markasta in ardaydu dadaalaan dhiirigelinta ay macallimiintu ka helayaan ay qaataan macallimiintooda runtii ay ixtiraamaan waa waxa aan kula talinayno mar walba laka cabsigana dabcan ay ku dadaalaan mar walba waxa saameynaa ardayga akhlaaqdiisa iyo aqoontiisa markastoo ardayga akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay oo dadaal uu ku darsado waxa hubaala inuu guuleysanayo imtixaan adduun iyo mid aakhiraba inuu aad iyo aad dabcan uu ku guuleysan doono insha Allah tacaala waan rajeynaa ardayda daaranka waalidiintooda iyo macallimiintooda inay dabcan qaado doonaan kana farxi doonaan runtii macallinka waxa la yiraahdaa Ashrafow waa qofka saddexaad ama waa qofka labaad ee ku farxaaya ardayga guushiisa marka laga soo tago hooyo iyo aabe oo runtii farxadda koowaad qaadanaya macallinkana waa hubal inuu jecel yahay inuu guuleysto ardaygiisa arday hebel oo ardaydaada ka mid ahaa maanta kaalinta koowaad galay runtii waxay uga dhigan tahay wax cajiib uga dhigan tahay sababtoo mirihiisii arkaya productiisa arkaya waana runtii wax uu aad ugu riyaaqayo iska daa inuu darajo iyo kaalin fiican galay ardayga markuu maanta 10 la siisay uu ka jawaabo aad ugu farxaysaa waa u mahadcelinaysaa thank you very much waad guuleysatay waad dadaalaysaa hambaliyo iyo macallinku leeyahay taasoo ka dhigan runtii macallinka inuu mar kasta ay ardayga horumarkiisa aad u jecel yahay waana runtii tiir muhiim ah oo kamid ah bulshada maxaan ku yiraahdaa tiirarkeeda ugu muhiimsan ustaad waa mahadsantahay mar kale haddii aan dib ugu soo laabto maanta oo 21 November sanadihii dabcan weli burburkii ayay markaa dalkeena uu ka soo kabanaya iyo dadkeenan dhanka waxbarashada si la mid ah bal maxaa isbedela ku muuqda oo dhanka macalinka marka la yiraahdo maadaama maanta maalinta macalinka ay tahay maalintiisii in loo kaco oo la weyneeyo la maamuuso maxaa isbedela ku muuqda oo ma jirta ay fafaalo macalinka xaaladihii markaasi xaaladda dal ugu jiro ka horeysay intaan marka laga soo tago tikacaanka burburkii ilaa ma xilligan macnaha ma muuqataa ama ay fafaalo ma aragtaa oo ka duwan macnaha wixii la soo dhaafay runtii markii la fiiriyo fifaalada way wanaagsan tahay hubaal waa dalka uu soo kabanaya Ashrafow marba marxalado iyo waxbaan ka soo baxaynaa iyadoo hadda runtii dalka uu qaatay hanaan federalism oo runtii maamulkii la kala qaybsado maamul goboleedyada la sameeyay waa hubaa insha Allah tacaala in wasaaradda waxbarashada iyo maamul goboleedyada hoos imaado wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya inay mar kasta ku hamiyaan ama ka shaqeynayaan in isbedel macallimiintu ay ku sameeyaan saa ogta Ashrafow waxa jirta wax horumarinta waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ay hoos imaato oo runtii mar walba ka shaqeeya tababar inay macallimiintu siiyaan iyagana waxaan rajeyn doonaa in ay tababaradiina badiyaan macallimiinta ay dhiirigeliyaan sidoo kale agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo hadda gacanta ku haya waxbarashada gobolka in ayagana saas oo kale tababarada ay badiyaan si loo helo macallimiin runtii aad u xirfad wanaagsan waxyaabaha dalkeena uu dhanka macallimiinteena moodo inaan aad uga hooseyn waxa kamid ah macallimiintu inta badan kulliyadda waxbarashada aan ka soo bixin dantuna biday inay macallinimadii ku biiraan oo bulshadii ay cilmigoodii maaragtay qayb ka qaataan horumarintooda
saas xitaa macallimiintaas oo kale waxay u baahan yihiin in trainingka aad loogu badiyo wasaaradda iyo agaasinka waxbarashada ay iska kaashadaan mar walba in macallimiinta la dhiirigeliyo oo tababaro fara badan loo sameeyo. haddii marka tababarahaas la helo Ashrafow waxaa xaqiiqo noqonaysa in macallimiinta ay soo kobci doonaan dugsiyada iyo maamulada public ay private-ka ah intaba haddii ay miisaaniyadda macallimiinta kor u qaadaan dhiirigelin badan macallinka ay u sameeyaan runtii waxaa hubaala macallimiintuna inay moral fiican helayaan. markastoo macallinka la wanaajiyana waxa saameynta wanaagsan lagu arkayo waxaa waaye ardayda oo runtii mar walba laga arkayo dhiirigelin iyo hor u socod in marka ay yeeshaan. taasna waan rajeynaa insha Allah ifaalada inay wanaaji doonto mustaqbalka dhowna uu noqon doono mustaqbal macallimiin wanaagsan oo runtii arday qurux badan soo saarta inay jiri doonaan. aad u mahadsantahay ustaad. qabiil dambe ee barnaamijka gaarka ahayno markaasi ku eegaynaa munaasabada iyo weliba weynaynta xuska maalinta 11 November ee macalinka Soomaaliyeed ayaan markaa weli daawadayaal ku sii jirnaaye. ustaad waxaan rabaa inaan in yar ka weydiiyo dabcan gobolka Banaadir oo aan ku noolnahay wuxuu leeyahay agaasi dabcan marka wasaaradda laga soo tago waxbarashada waxay saaran laakiin maalmo dambe waxaa jiray iska xoogaa oo macallimiinta marka loo eego in la diiwaan geliyo iyo inaanan macalinka qiimihiisa markii aad eegto macallimiinta qaar aad wareysato kale ama wax ka weydiiso in ay xaalad kale abuuri karto bal arrimahaasi maxaad kala socotaa? Ashraf waa runtahay barihaan waa ay taagneed wasaaradda waxbarashada runtii oo wasaaradda guud ee dalka mas'uulka ka ah waxbarashadiisa agaasinka waxbarashada si gaar ah gobolka Banaadir ayuu dabcan ka howlgalaa. khilaafaad yar oo farsamo ah way jiri karaan oo runtii la isku qaban karaayo laakiin waxaan moodaa in si guud qolo kasta ay dadaal waxbarasho runtii ay wado. labada dhinacna waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala wixii mugdiyo jirana inay maxaan ku raadayay xaliyaan si guudna mar kasta ay loo dhimriyo bulshada oo wax aan runtii aad muhiim u ah. macallimiinta kuma sii jiraanba maamooyina ku jira waxaa ku jira rag runtii ubad wanaagsan ubad badan ay yiraahdo ka biila oo runtii ka nool ka masruufa mushaarka yar ka helaan macallinimada runtii wixii culays in macallimiinta laga maaragtay joojiyo waa wax muhiim ah. wixii si guud oo amniga macallinka iyo runtii nabadgelyadiisa iyo runtii guud ahaan xeerarka waxbarashada ka mid ahna waa muhiim in la wada qaato way noqon doontaa. waxaan is leeyahay wax weyn oo saameynayo waxbarashadii ma ahan laakiin waa wax farsamo la xiriira oo san hala yeelo iyo san hala yeelo maaragtaa la isku qabtay laakiin waan rajeynaa insha Allah tacaala inay wax badan wanaagana ay ummadda u haayaan waxyaabaha yararka imaanaya saas oo kale oo khilaafaadana in waxaan rajeynaynaa ay si gaar ah ula falgeli doonaan oo ay xali doonaan. macallimiinta markaas in loo dhimriyo maahane kulley ma mudna in maxaan ku yidhahdaa culaysyo kale la saaro. waa mahadsantahay ustaad. ugu dambeyn gobolka Banaadir oo aan ku sugannahay ardayda imtixaanaadka qaranka inta badan sanadii u dambeeyay waxaad moodaa inay iyagu u tiro badan yihiin in imtixaankaasi ay ku dhacaan. dabcan horeyna talaad noogu soo bixisay runtii taladaadana waan filayaa in laga faa'iideysto. maxaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed hadalkaaga ugu soo ganaanudaysaa iyo weliba gaar ahaan ardayda gobolka Banaadir oo markana wajihi doona imtixaan ka bedelan imtixaanaadkii hore u arki jireen maadaama imtixaanaadka hore uu yahay imtixaano iskuulka lagu qaado laakiin tan ay tahay imtixaanka ugu dambeysay waanadaada iyo taladaada guud ahaan markaa noo soo koobto. aad u mahadsan tahay. ardayda waan usoo laaban doonaa Ashrafow maadaama maanta fursad weyn ay tahay oo macallinka Soomaaliyeed aan xusayno oo runtii aan qadarin fiican u muujinayno. waxaan rabaa marka hore in macallimiinta Soomaaliyeed si gaar ah uga hambaliyeeyo maadaama maanta maalintooda ay tahay runtii door muhiim ah ay ka soo qaateen waxbarashada dalka waana dadka mudan in mar walba madaxa la saarto la dhiirigeliyo la sharfo halka maalinkeeyana ma ahani in markasta ixtiraamka macallinka runtii uu jiro wax la heli karo ma ahan. macallimiinta laga soo bilaabo dugsiga macallimiinta iskuulka macallimiinta maxaan ku dhahay heerka jaamacadeed qaybaha kala duwan runtii waxbarashada kuwa barefadiyada caadiga ah iyo kuwa macaahidda caadiga ahba inta waxaa hubaala Ashrafow inay saameyn wanaagsan bulshada ka qaateen horumarinteeda. macallimiintana runtii waxaan rajeynayaa in Ilaahay dartiisna camalka ahayaan ay u niyeystaan mar walba bulshadana mar walba ay ku garab istaagaan. runtii waxaa la yiraahdaa 10 sabab macallimada lagu doorto kama mid ah in lacag laga sameeyo. macallinka waxaa hubaala inuusan waxbarashada lacag badan ka helaynin laakiin waxa ugu muhiimsan uu ka helaa ay tahay sumcadda bulshadiisa sharaf iyo cizi
inay ummadiisa u haayaan halka mari maxaan ku leeyahay magaalada uu soo galo in macallin hebel macallinkeyga la yiraahdo ayaa wax weyn u ah intaasoo macallinkana abuurtaa taasna waxaan rajaynaynaa ardayduna inay ku baraarugaan macallimiintana insha allahu tacaala ajirkiina ilaahay maaragtahay idinkugu daro dadaalka runtii bulshada u haysaan anaga runtii macallin ahaan runtii waan faraxsannahay mar walba waxaan isku daynaa in ardaydayna mas-uuliyadda aan u qaadnay inaan ka dhabayno oo runtii ardayda waxbarasho tayeysan aan gaarsiino waxa ugu muhiimsan hadda maanta macallin u tabayana waxaa waaye in agabka waxbarashada iskuullada loo soo dhammaystiro practicalkii aad u yar caqabadaha aad iyo aad macallimiinta haysta ka mid tahay si gaara macallimiinta sayniska dhigta oo kale ama maadooyinka practicalka u baahan physicska iyo chemistryga oo kale iyo biologyga oo kale in runtii laabyo loo sameeyo waa talooyinka aan soo jeedinayno runtii si macallimiinta ay maqal iyo muuqaal tusi iyo taabsi waxyaabo fara badan ay u sameeyaan dhanka kalena waxaan kusoo qatimayaa su-aashaadii ahayd ardayda maxaan ku yidhaha si gaara gobolka banaadir maadaama imtixaanaadka lasoo dhaafay inta badan ay yihiin kuwa dhicitaanku uu ku badan yahay saan dareemaya ashrafow ardaydu markasta gobolka banaadir ayaa u badan ardayda ka qayb qaadata imtixaanaadka qaranka saasay tahayna runtii iskuulo tayeysan oo runtii waxbarashada aad ugu fiican ayaa jira lama dhihi karo gobolka banaadir dadka dhaca maadaama ay ku badan yihiin waa gobol wada liita waa runtii gobol caasimadii dhanba ay ku taallo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadaalkii inay ardaydana badiyaan wax akhriska maxaan ku yidhaahdaa aad iyo aad ay u badiyaan waa tii la oran jiray man dalaba alculaa sahara layaali qofka mar meel sare maaragta dalbaaya waa inuu dhafraa uu wax akhriyaa uu dadaalaa qof aan maaragta dadaalin waxaa hubaala inuu safka daba raacaayo waana bogaadinayna insha allahu tacaala ardada wanaagsan ee runtii hadda u carbisan inay casharada akhriyaan macaahidu ay ku biiraan isdhisaan maxaan ku yahay jimcaha khamiistii ka faa'iidaystaan xalaqaadka habeenkii masaajidda ay wax ka akhristaan runtii waa wax cajiib ah oo runtii loo baahan yahay in ardayda lagu dhiirigeliyo in dadaalo badan ay sameeyaan waana filaya insha allahu tacaala ardayda sanadkan inay wacdaro fiican ka dhigi doonaan imtixaanka qaranka waana rajeynaa inay guul wanaagsan ka gaari doonaan insha allahu tacaala waa tahay aad baa u mahadsan yahay ustaad cabdiraxmaan xasan xuseen ustaad shoogtiye waxaan jeclahay inaan halkaa kusoo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegeynay weynaynta macalinka soomaaliyeed oo maanta 21 November kuna astaysan maalinta macalinka soomaaliyeed dabcan waxa martii igu ahaa ustaad cabdiraxmaan xasan xuseen ustaad shoogtiye oo kamid ah bariyaasha gobolka banaadir haddaan si gaar ah markaas u iraado maamulka Sigma Academy ustaad aad u mahadsantahay thank you arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo